maanta waxaan ka soo qayb galnay xaflad aad u weyn oo loo qabtay xaafadda Newham la yiraahdo oo ay soo qaban qaabisay ururka la yiraahdo Newham Somali Association oo macnaheedu uu yahay in la isugu yeero dhalinyarada Newham degan mainly wax baratay jaamacadaha galay college experience ka qaatay si ay u yimaadaan oo ay u share gareeyaan experience-koodii systemka education-ka loo maro iyagoo aan la soo koobi karaynin inta subject ay qaateen haddaan soo qaato tusaale ahaan ay tahay psychology-gii ardaydii baratay engineering-kii ay barteen IT-gii management-kii ma soo koobi karayo laakiin dhalinyaro aad u firfircoon maasha Allah oo si fiican wuxuu baratay ayaa gacan qabanaya dhalinyarada imika soo koraya oo su'aalahay weydiin karayaan hooyooyinkii aabihii baa la hadli kara oo iyaguna weydiin kara dhalinyaradii waxay maaragtay systemka education-ka sida loo maro oo waxa naga caawisay ururkan maayaradii Newham baa iyadana ku jirtay groupkeedii oo aad noo support gareeyo as you can see dhalinyaro badan baa timi oo family-goodii wata town hall-kii baa lagu sameeyey maasha Allah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa most importantly waxaan u mahadnaqaynaa Newham Somali Association oo ururan ka mid ahay oo si xoog leh Soomaalida isku dayay especially xaafadan degan inay si aad iyo aad u caawiyaan oo education-kii ka mid tahay housing-kii ka mid yahay ma soo koobi karo laakiin si fiican bay noogu dhacday aad iyo aad baan idin mahadnaqayaa waxaa markaa farxad ah inay maanta ay halkan ay isku xog wareysanayaan si ay ma garanaysaa ay isu dhiirigeliyaan oo ay muxuu ahaa talo kala qaataan kii iminka professional ahaa shaqo ku jira uu talo u siiyo kuwan iminka jaamacadaha ku jira kuwa jaamacadaha ku jira iminka ay ardayda iminka kolashada ku jira jaamacadaha gelaya talo u siiyaan ay waraysi guud siiyaan arrinta ayaa meesha ka socota waana mid qofkan jawiga arkaa uu aad ugu farxayo dadka farxad gelinaysa waxaan halkan aan ugu mahadnaqayaa markaa Newham Somali Association oo arrintan isku soo dibariday hawl weyn ka qabatay waa war aad farxad la weeyaan waxa halkan noogu yimi maayarkii Newham oo hadalka jeedisay waxa taa markaa ay tusaysaa in halkan aan wax fara badan aanu ka qabanay kana qaban doono insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed ee heerka gaaray siday ugu gudbin lahaayeen walaalahood inta kale hadda ku jirta waxbarashada ee rabta inay ma aragtay gaaraan mustaqbal fiican gaaraan inay talooyin badan siiyaan inay u sheegaan wadada ay mareen si ay ugu daydaan iyaga mustaqbalka inay dhistaan waxaan rajaynaynaa insha Allah kullikiis dambe inay inta ka sii weynaato oo dhalinyaro badan isku yimaadaan oo professional ah anagoo ka faa'iideysanayna aqoontooda si ay ugu gudbin lahaayeen dhalinyarada kale ee soo koraysa marka aad iyo aad baynu aanu ugu faraxsannahay inaanu isu keenno dadkaas oo dhan si ay isu bartaan isu ogaadaan dhallinyaradeenna wixii u baahan in la gaargarayo ama wixii lagu hago waxyaalaha ay doonayaan hadday shaqo tahay hadday waxbarasho tahayba hadda waxaan joognaa xafladda Newham Somali Association-ka oo ah careers fair marka dhammaan waxaa isku wada imi dhalinyaradii wax soo wada bartay marka aad iyo aad baan ka faraxsannahay oo waxa la wada keenay shaqaalaha ka shaqeeya subjectada la yiraahdo engineering-ka IT dhaqaatiirta waxyaabahaas oo kale marka aad iyo aad baan faraxsannahay maasha Allah